guddiga doorashooyinka qaranka ee degmada Berbera iyo gobolka Saaxil ayaa goorfiidkii ahayd ku dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ee xubnaha ku guuleystay golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo sidoo kale xildhibaanada ku guuleystay kuraasta golaha wakiilada ee gobolka Saaxil. ugu horreynna guddoomiyaha komishanka doorashooyinka degmada Berbera oo faahfaahin ka bixinayay ayaa sheegay in xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uu ku guuleystay 3 xubnood halka xisbiga kulmiye uu ku guuleystay 6 xubnood halka xisbiga wadanina uu ku guuleystay 4 xubnood soo hadhay. qabsoomay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 31 May 2021 maanta waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaa natiijadii hordhac ahayd ee golaha deegaanka degmada Berbera. marka hore waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ciidanka qalabka sida ee sida hagar la'aanta ah ula shaqeynayay intii ay hawsha socotay bahda saxaafadda iyo dhammaan howlwadeennada kale anigoo raacaya qodobka 130aad ee xeerka komishanka doorashooyinka xeer number 19/2020 waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaa natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka degmada Berbera. sida loo kala helay kuraasta golaha deegaanka waa sidan soo socota. xisbiga awcid wuxuu ku guuleystay 3 kursi. xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay 4 kursi iyo kursi fraction ah. xisbiga wadanina wuxuu ku guuleystay 3 kursi iyo kursi fraction ah. tirada guud ee ka codeysay degmada Berbera xisbiga awcid waa 1489 cod. xisbiga kulmiye 14,489 cod. xisbiga kulmiye 23,804 cod. xisbiga wadani 15,477 cod. wadarta guud ee ka codeysay degmada Berbera waa 53,779 cod. xisbiga awcid waxaa ku guuleystay number 101 Maxamed Ibrahim Ismaaciil oo ku guuleystay 3,163 cod. waxaa ku xiga Axmed Xaaji Cali Caynabo oo ku guuleystay 1,679 cod. xildhibaanka saddexaad waa Jaamac Maxamed Cabdi Caateeye oo ku guuleystay 1,651 cod. wuxuu helay 3 kursi. xisbiga awcid xisbiga kulmiye oo ku guuleystay 4 kursi iyo kursi jajaba oo dhexyaal ah. waxaa ugu horeeya number 101 Cabdishakuur Maxamed Xasan 201 cafan Cabdishakuur Maxamed Xasan 5,870 cod. 207 Cabdirashiid Nuur Wacays Buraale 30 205 Axmed Cabdilaahi Weydiiriye 2,400. 211 Maxamed Xaaji Maxamuud Maxamed 2,073 cod. 209 Cali Cabdi Maxamed Cali 1,995 cod. 202 Cabdirashiid Xaaji Yuusuf Xaaji Maxamed Yuusuf Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf 1,930 cod. wadarta guud ee xisbiga helay waa 4 kursi iyo kursi jajaba waa 5 kursi. xisbiga wadani waxaa ugu horeeya 313 Nuur Cabdi Jaamac Cabdi 2,456 cod ayuu ku guuleystay. 303 Aadan Xuseen Yuusuf Xasan 2,627 cod ayuu isna helay. 302 Alif Maxamed Cabdilaahi Cilmi Xasan 1,441 cod ayuu ku guuleystay. 305 Baasha Cabdilaahi Ibraahim 1,389 cod oo waa kursigii isna jajabka ahaa. wadarta guud ee ku guuleystay xisbigu waa 3 kursi iyo kursiga jajabka. wadarta guud waa 4 kursi. kuraasta uu xisbiga kulmiye ku guuleystay waa 5 kursi iyo kursi jajaba. wadarta guud ee helay waa 6 kursi.
sidoo kale gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka saaxil ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay saddexda xisbi qaran ugu kala guuleysteen 10 kursi ee golaha wakiilada ee gobolka saaxil waxaana gudoomiyaha oo ka hadlaya ugu horeynba uu sheegay in xisbiga UCID uu ku guuleystay 3 xildhibaan halka xisbiga kulmiye uu ku guuleystay 4 xildhibaan halka xisbiga wadanina uu ku guuleystay 3 xildhibaan gudoomiyaha oo ka hadlayana wuxuu yidhi 2020 anagoo maanka ku hayna ahmiyadda ballaaran ee qaranka ay u leedahay ku dhawaaqista doorashooyinka gobolka saaxil annaga oo tixraacayna isugeynta wadarta guud ee codadka ansaxay ee degmada iyo gobolka saaxil dhammaantood ee heer qaran annagoo garwaaqsan daahfurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codadka murashaxiinta saddexda xisbi qaran waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa natiijada horudhaca ah ee golaha baarlamaanka gobolka saaxil guud ahaan gobolka saaxil waxaa ka codeeyey 56,768 codbixiye waxa sida ay xisbiyadu u kala horeeyaan xisbiga UCID waxa uu ku guuleystay 3 xildhibaan oo ugu horeeyo علي جامع رالي برة علي قرن أو هلاي 3,300 إيو لبقي اللي حدن عض محمد جامع الليبان عواله أو هلاي 3,000 اللي حي صدن عض مبارك حسين محمد حيلدارة أو هلاي 2,000 يفري سديتن 3 حلبان وحي كقصب بحين حسب UCID ويكون جولستين وبنماذا برلمانك حسبك وطني الحسب كلبية وحا ugu horeeya injineer xirsi cabdilaahi xirsi oo dawaa oo helay 5,167 cod xildhibaanka labaad ee xisbiga kulmiye waxa weeyaan aadan cismaan xarbi cawaale oo helay 4,790 xildhibaanka saddexaad حويان عبد الله موسى عبد عواله أو هلاي 3,300 حلبان كأفراد حويان عبد الرشيد عبد الله موسى أو هلاي 2,400 حسبك ودني وحاو هلاي 2 حلبان يا حلبان كصوب حي ششبك 2 حلبان هوري وحويان عبد الرحمن يوسف محمود أو هلاي 3,459 حلبانك لبعض حوالي حسن عمر حسن روبله أو هلاي 3,620 حلبانك صدح هذا حوالي كوب صوب حي عذك ششبك عبد الرحيم هجر عبدي قوله حسبيده سدا عذك جارجار كوكله هلاي وحوالي حسبي جوعي ضحى هلاي 2,460 عض حسبي وضني حسبي kulmiye wuxuu helay 26,576 xisbiga wadana wuxuu helay 18,745 cod sidaas ayay natiijadu ku ansaxday Kamta Ismaan Ali wararka Real TV Berbera